Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luuqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama ku cusub barashada luuqadda Jarmalka. Waxaynu ku baran doonaa casharkan dative prepositionen meeleeyayaasha datifka. Waxa aynu muhiimadda ama ahmiyadda siin doonaa casharkan in aynu barano meeleeyayaasha a1 ilaa a5 ah ee aad u baahan tahay in aad hadalka maalintii ku isticmaashid amba aad u adeegsatid hadalka aad isticmaalaysid. Intaynan casharkeena bilaabin aynu labadan tusaale eegno ama labadan preposition ugu horeeya si aynu usii fahanno qaabkay u shaqeeyaan artikalada ama qaabkay artikalada datifku isku bedbedelayaan markuu la socdo prepositionku ama meeleeyuhu. Haddaba aynu eegno jumladda u horeysa Ich komme aus der Türkei. Waxaan ka imi Turkiga. Sida caadiga ah Turkei waxa weeyaan artikalka d ayuu qaataa waa dhadig ama gabadh, tusaale ahaan d Turkei Turkiga. Sidaa darteed prepositionka ama meelayaha kadib oo ah aus wuxuu isku bedelayaa artikalka ka dambeeya der maadaama artikalka saxda ee Turkei qaadata uu yahay d. Marka jumladdu iminku Ich komme aus der Türkei waxa weeyaan waa dative. Marka ay dative noqonayso der d ayaa waxay isku bedelaysaa der. Tusaalaha labaad Ich komme aus der Schweiz. Waxaan ka yimid Switzerland. Artikalka uu Schweiz qaato sida caadiyanka ah waxa weeyaan waa d. Marka iminka jumladani waxay noqonaysaa dative. Sidaa darteed die Schweiz waxay isku bedelaysaa der Schweiz. Aynu eegno tusaalahan labaadna intaynan bilaabin casharkeena. Wir kommen nach dem Unterricht. Waxaan imanaynaa xiisadaha kadib. Wir waxa weeyaan annaga ama innaga oo ah subjectiga jumladeenna. Halka nach dem Unterrichten ay tahay prepositionales object ama dative preposition uu la socdo. Artikalka uu qaato Unterricht waxa weeyaan waa der. Sidaa darteed wuxuu isku bedelay dem Unterricht. Haddaba waa kuwan prepositionen mit dative meeleeyayaasha la socda datifka. Sida caadiga ah waxaa jira prepositiono badan oo ciidda ka fara badan baa jira. Ab, von, nach, zu, seit, aus, gegenüber, bei, mit, außer. Inta kale ee hadhayna waxaynu ku baran doonaa casharo kale. Haddaba prepositionka amba meeleeyaha ugu horeeya wuxuu noqonayaa ab oo macnaheedu tahay bilaabo amba waxaas laga bilaabo amba waqtigaa laga bilaabo. Aynu gelino tusaale. Ab nächste Woche haben wir Ferien. Laga bilaabo usbuuca kale waxaan leenahay ama usbuuca soo socda waxaan leenahay fasax, waxaa noo bilaabmaya fasax. Wuxuu noqonayaa prepositionku ab ama waxaad oran kartaa ab nächste Monate bisha soo socota. Ferien macnaheedu waxa weeyaan waa fasaxa ardayda iskoolada la siiyo ayaa la yiraahdaa Ferien. Aynu gelino tusaale kale. Das Geschäft ist ab Montag geöffnet. Aan ku celiyo mar kale. Das Geschäft ist ab Montag geöffnet. Ganacsigani ama meeshan shaqadu waxay furan tahay laga bilaabo maalinta Isniinta. Aynu tusaale kale gelino. Du kannst ab Montag weiter arbeiten. Aan ku celiyo mar kale. Du kannst ab Montag weiter arbeiten. Waad shaqayn kartaa laga bilaabo Isniinta. Aynu eegno prepositionka xigana. Von. Von waxay la macno tahay oo si loo isticmaalaa badanaa ab prepositionka ugu horeeya laga bilaabo. Bal aynu gelino tusaale. Kommt von der Schule. Wuxuu ka yimid iskoolka ayuu ka yimid imika.
Das Auto ist ein Geschenk von meinem Vater. Aan ku celiya mar kale. Das Auto ist ein Geschenk von meinem Vater. Kani waa gaadhi hadiyad ah oo ka yimid aabbahay. Waxaad ogaataa artikalka uu qaato der Vater. Vater uu qaato waa der. sidaa darteed wuxuu isku bedelayaa dem marka ay dative tahay. sidaa darteed ayay halkan u tahay prepositionka kadib meinem. aynu gelino tusaale kale. Von nächster Woche werde ich Deutsch lernen. Von nächster Woche werde ich Deutsch lernen. waxaan baran doonaa usbuuca soo socda af Jarmalka, ama laga bilaabo usbuuca soo socda waxaan baran doonaa af Jarmalka. Asha kommt gerade vom Zahnarzt. Asha kommt gerade vom Zahnarzt. Ashi waxay ka timid iminka dhakhtarka ilkaha. waxaad isweydiinaysaan baa laga yaabaa prepositionku von ayuu ahaa ee muxuu u noqday form. form wuxuu u noqday artikalka uu qaato Zahnarzt waa der, wuxuu isku bedelayaa markaa dem. marka von oo ah prepositionkii iyo dem oo isku tegay ayaa waxay isku noqonayaan form. aynu tusaale kale gelino bal. Der Unterricht ist von Montag bis Freitag. xiisaduhu waa ka isniinta ilaa iyo jimcaha, ama xiisaduhu waxay bilaabmayaan oo ay soconayaan isniinta ilaa iyo jimcaha. aynu eegna isna prepositionka nach. nach macnaheedu waxa weeyaan ku, ama ku socda, ama kadib, ama lasoo dhaafay. intaasba waa loo isticmaalaa. waxay ku xiran tahay qaabka adiga u isticmaalaysid. bal tusaalayaashan aynu eegno si aad u fahantaan. Im Urlaub fahren wir nach Somalia. Im Urlaub fahren wir nach Somalia. waxaan u baxaynaa Soomaaliya fasax. waxaynu u isticmaalnay nach markan meel aad ku socotid oo tegaysid. meel kastood u socotid waa isticmaali kartaa. dad Maraykanka tegaysid nach USA waad oran kartaa, nach Ethiopia waad oran kartaa, nach Deutschland waad oran kartaa. aynu gelino tusaale kale. Nach dem Unterricht habe ich meistens Hunger. aan ku celiyo mar kale. Nach dem Unterricht habe ich meistens Hunger. xiisadaha kadib badanaa gaajo ayaa i qabataa. prepositionka kadib waxaa ku jirta dem. sidaa xaggay ka timid? waxay ka timid artikalka uu qaato Unterricht ayaa ah der. sidaa darteed waxay isku bedeshay dem Unterricht datifka. aynu bal preposition kale gelino. Ich fahre mit dem Auto nach Deutschland. Ich fahre mit dem Auto nach Deutschland. waxaan u kaxaysanayaa gaadhiga ku Jarmalka, ama meeshaad u socotid. artikalka uu qaato auto waa das. sidaa darteed wuxuu isku bedelay iyadana dem auto. aynu eegno tusaalahan kale. ist nach dir gegangen. adiga dabadaa ayuu tegay, ama adiga dabadaa ayuu baxay, ama adiga markaa tagtay ayuu kaa daba tegay, isna tegay. nach waxaad u isticmaali kartaa markan oo kale dabadaa, amba wax tegay, amba qofkaas adiga markaa dhaqaaqday buu dhaqaaqay, dabadaa buu dhaqaaqay, adiga dabadaa. ist nach dir gegangen. aynu eegno prepositionka xiga su macnaheedu waxa weeyaan ku, amba meel ku sii jeeda. shaygaasi ama qofkaasi markaad meel waad ku sii jeedid ayaad isticmaali kartaa su. sidee hayaan haddaba u isticmaalayaa? bal aynu eegno tusaalayaashan si aad iyagana u fahmi kartaan. tusaalaha u horeeya. ich komme zu dir. adigan kuu imanayaa. su macnaheedu waxa weeyaan ku adan kugu soo socdaa, ama adigan kuu imanayaa. ich komme zu dir. aynu gelino tusaale labaad. Asha fährt am Wochenende zu ihren Eltern. Caashi waxay tegaysaa, ama Caashi waxay ku socotaa usbuuc dhamaadka waalidkeeday u socotaa. Morgen gehe ich zum Arzt.
aroortii waxaan tegayaa ama subaxa berri waxaan tegayaa dhakhtarka. haddaba waxaan u malaynayaa waxaa isweydiinaysaan sum halkay ka timid. artikalka uu artist qaataa waxa weeyaan waa deerna waxay isku beddelaysaa datifka markaan joogno deem. haddaba suudii iyo deemtii oo laysku daray ayaa waxay noqdeen sum. Wann hast du Zeit zum Lernen? Wann hast du Zeit zum Lernen? goormaad waqti u haysaa wax dhigasho, ama wax dhigasho goormaad waqti u haysaa. sum iyadana waa sidii oo kale. lernen waa artikalka daas ayay qaadataa. sidaa darteed deem ayay isku beddelaysaa suu iyo deem oo laysku darayna waxay noqonayaan sum. bal aynu gelina iyadana tusaale. geht zur Schule. isagu wuxuu tegayaa iskoolka ama wuxuu u socdaa iskoolka. artikalka uu qaato shule waxa weeyaa waa diina datifka waxay isku beddeshaa deer. haddaba suu iyo deer oo laysku daray ayaa waxay isku noqdaan suwa. aynu eegno meeleeyaha xiga. site macnaheeduna yahay ilaa amba ilaa muddo waqti baa loo isticmaalaa. aynu gelina tusaale. site 6 Monaten haben wir uns nicht mehr gesehen. aan ku celiyo. seit 6 Monaten haben wir uns nicht mehr gesehen. ilaa 6 bilood ismaanaan arag mar dambe amba waqti dambe ismaanaan arkin. tusaalaha kale. seit einem Jahr habe ich Asha nichts mehr gehört. ilaa sanad ama muddo sanad ah wax war ama wax dambe kama maqlin Asha. tusaalaha xiga. seit einem Jahr lebe ich in Deutschland. ilaa sanad waxaan ku noolahay Jarmalka. lebe iyo funan waa isku macno. leben iyo funan. prepositionka xiga. aus macnaheedu waa ka saarid amba wax noqon kartaa oo kale ka imid meel aad ka timid oo kale. ich komme aus Somalia. waxaan ka imid Soomaaliya. ich komme aus Somalia. waxaan ka imid Soomaaliya. tusaale ahaan wadamada artikalka qaata. Soomaaliya wax artikal ah ma wadato, laakiin Switzerland oo kale waa wadamada artikal wata. ich komme aus der Schweiz ayaad odhanaysaa haddaad ka timid, laakiin ma odhanaysa ich komme aus der Soomaaliya. aynu gelina tusaale kale. holst du bitte das Auto aus der Garage. aan ku celiya mar kale. holst du bitte das Auto aus der Garage. garage wuxuu qaataa artikalka d, laakiin marka aynu datif joogno wuxuu isku beddelayaa der. diese Kette ist aus Gold. silsiladan waxa laga sameeyey dahab amba waxay ka timid dahab ayay noqonaysaa. aynu eegno prepositionka xiga. gegenüber ka soo horjeeda ama ka horjeeda. ich wohne gegenüber dem Bahnhof. waxaan ku noolahay istaanka ka soo horjeedkiisa ama istaanka baabuurta ama basaska ka soo horjeedkiisa. artikalka uu qaato Bahnhof waa der. sidaa darteed marka aad datif ka hadlaysid oo aad leedahay ich wohne gegenüber dem Bahnhof waxaad isticmaalaysaa artikalka dem. sitzt mir gegenüber. aan ku celiya mar kale. sitzt mir gegenüber. isagu wuxuu fadhiyaa aniga ka soo horjeedkayga. aynu eegno prepositionka xigana. by macnaheedu wuxuu noqon karaa uun af Soomaali u dhow ama inta lagu jiro amba la. aynu gelina tusaale. ich arbeite bei Mercedes. ich arbeite bei Mercedes. waxaan ka shaqeeyaa Mercedes. Mercedes waa shirkad baabuurta soo saarta. haddaba marka aad u shaqaysid shirkad amba company waad u isticmaali kartaa by. bist du gerade bei deinen Eltern? ma waxaad la joogtaa imika waalidkaaga. xasuusnow maadaama oo ay plural ama jamac tahay waxay noqonaysaa deinen Eltern. gestern war ich beim Arzt. shalay waxaan la joogay dhakhtarka. beim maxay u noqotay ayaa isweydiinaysaan baan u malaynayaa.
by waa prepositionkii ama meeleeyihii. Artist wuxuu qaataa articleka der. Marka labadooda la isku daro ayaa waxay isku noqdaan bime. Haddaba aynu eegno iyadana prepositionka xiga mit oo macnaheedu yahay la socda amba la. Aynu gelino tusaale. Ich trinke Kaffee mit Zucker. Waxaan cabayaa shaah kafee sonkori la socotaan cabayaa. Aynu gelino tusaale kale. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ku celiya mar kale. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Waxaan u kaxaysanayaa gaadhiga shaqada. Auto wuxuu qaataa articleka das, sidaa darteed wuxuu isku bedelayaa dem. Wixii der qaata iyo wixii das qaataaba waxay isku bedelaan dem marka datifka la joogo. Mit Brille kann ich besser sehen. Aan ku celiya mar kale. Mit Brille kann ich besser sehen. Muraayad markaan xidhanahay ayaan si fiican wax u arki karaa. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus. Maalin walba waxaan ku socdaalaa ama raacaa bas. Bus wuxuu qaataa articleka der, sidaa darteed wuxuu isku bedelayaa dem bus. Übung Laylis. Marka u horeysa ee aad su-aasha aragtid, istaaji fiidiyowga kadibna isku day in aad ka jawaabtid amba comment ahaan kusoo qortid. Kadib dib usii soco jawaabta ayaad arki doontaa markaad fiidiyowga dib usii daysid. Aynu ka bilowno su-aasha u horeysa. Fund meel bannaan 20 Jahren in diesem Haus. Maxaa ku habboon ee gelaya saddexda article ee xagga sare saddexda preposition ee xagga sare ku qoran. Jawaabtu waxay noqonaysaa seit. Fund seit 20 Jahren in diesem Haus. Su-aasha labaad. Ich komme gerade meel bannaan. Fußball nach Hause. Maxaa gelaya saddexda preposition ee xagga sare ku qoran. Fiidiyowga istaajiso, ka fikir, isku day in aad ka jawaabtid su-aasha. Haddii aad comment ahaan kusoo qori kartid jawaabtana kusoo qor. Jawaabtu waxay noqonaysaa form. Ich komme gerade vom Fußball nach Hause. Waxaan ka imid kubad, yacni kubad baan ka imid oo gurigaan imid. Soo koobid. Waxaad ku soo barateen casharkan ama aynu ku baranay casharkan. 1. Artikelada datifku qaabka ay isku bedelaan ee tusaale ahaan ay iskugu bedelaan dem iyo der iyo. 2. waxa kale aynu ku baranay casharkan meeleeyayaasha jarmalku ama prepositionada jarmalku qaabka u shaqeeyaan. 3. iyo jumlada datifka qaabka loo dhiso. Danke, mahadsanid. Waad ku mahadsan tahay intaad i dhageysatay ee aad i daawatay. Waan rajaynayaa inaad dhammaantiin wax badan ka wada fahanteen casharka. Haddii aad casharka ka heshay, fadlan sheer garee oo la wadaag asxaabtaada jecel inay iyaguna bartaan luuqadda Jarmalka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharro kale oo fara badan oo aanu soo gudbino usbuuc walba amba maalin walba.